kulanti wacan wanaagsanna daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada aan kugu helno waxaa ka mid noqon doona warar dheeraad ayaa ka soo baxaya shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee wadatashiga qaran ee Muqdisho ka furmay dhinacyadu waxa ay la sheegayaa in ay ku heshiiyeen muddo kororsi ay sameeyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wararka ugu dambeeyay macluumaad arrintaas ku saabsan ay maqal doonaan iyo halista ka dhalan karta muddo kororsiga xukuumadda iyo maamul goboleedyada ay sameeyeen haddaba imasasan ayay ku darsadeen waa daawo doontaan mucaaradka sumaxay leeyihiin falanqeyn ayaa kageena daawadayaal waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud iyo siciidani oo isla markaana ahaa kuwa shirka wadaag ah sanooyinkii lasoo dhaafay markay mucaaradka aheen ayaa hadda waxaa madaxweynaha Puntland lagu qanciyay in xil la siiyo wiil uu dhalay kadib markii dani uu ka carooday in xukuumadda aan lagu soo darin qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona wararka ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku wajahan magaalada Garowe kadib khilaafkii siciidani kala dhaxeeyay oo dhamaaday qodobadaas ku faahfaahin doona wararka lama caalamka diblomaasiyadda fadlan haddii aad noqoto subscribe noo saar gambalka furnusi shirgareeya saaxiibadii ma kasii joogay xukuumadda laakiin noo reebaya aad baad u mahadsantiin aan ku bilaawno saaxiibayaal shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka furmay shalay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu go'aamin doono muddo kororsi dadban oo loo sameyn doono madaxda dowlad goboleedyada ila wareedo ka ag dhow shirkan ayaa xaqiijiyay in uu markaas golaha isla meel dhigay in dhammaanba dowlad goboleedyada isku waqti uu ka dhamaado xilka si aan howlo doorasho aan loogu mashquulin dagaalka adag ee lagu jiro al-shabaab qodobada ayaa ka mid noqon doona warar murtiyeed kala filayay inuu kasoo baxo shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka arrintan ayaa ka dhigan in dhammaanba madaxda dowlad goboleedyada uu xilka isku mar uu ka wada dhamaan doono 2025 xilligaas oo waqtigu uu madaxweynaadkiisa ku egyahay madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe maadaama uu hore muddo sanad ah markaas ugu daray baarlamaanka maamulkaasi sidoo kale Axmed Madoobe Cabdicasiis Laftagelin qorqor ayaa iyaguna baarlamaankooda hore ay uga ansixiyeen muddo kororsi hal sano ah isigasa waxaa cadeen sida arrintan loo marsiin doono reer Puntland maadaama maamulkoodu uu kaga duwan yahay maamulada kale in awoodda aanay gacanta ugu jirin hal shaqsi oo kaliya si rasmi ah looma oga in marka horeba qodobadan uu qayb ka ahaa ajendaha shirka iyo in markaas uu gadaal kaga soo biray maadaama qodobada ugu weyn ee xilligan hor yaalay uu ahaa iskaashiga dhinacyada dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xoojinta howlaha markaasi shaqada dhinacyada madaxweyne ayaa muddo ku dhaleeceyn jiray madaxweynihii hore Farmaajo inuu markaas ku tuntay dastuurka oo uu sameeyay muddo kororsi wuxuuna noqon doonaa kala wareeg siyaasadeed iyo mid mabda oo degdeg ah in markaas 5 bilood kadib bixitaankii Farmaajo uu muddo kororsi aqbalo dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markaan waxa ugu dambeyntii ay u muuqataa in uu safar ku tagi doono magaalada Garowe ee maamulkaasi Puntland kadib khilaafkii iyo madmadowgii kala dhaxeeyay madaxweynaha maamulkaasi Abdullaahi Dani wasaaraha ayaa xalay ugu dambeyn la kulmay madaxweynaha Puntland kadib bilo aysan wada hadlin dhinacyada kulanka ayaa ka dhacay hotel uu Muqdisho ka degan yahay madaxweynaha Puntland halkaas wasaaraha xalay uu booqasho ugu tagay qoraal kooban ay baraha bulshada ay soo dhigeen labada mas'uul ayay ku sheegeen inay soo qaadeen qodobo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan xaaladda amniga dalka iyo abaaraha gurmadka kulanka waxaa ka qayb galay taliyaha ra'iisul wasaaraha ee arrimaha dibadda dibashiisinta Cali Cabdi Awaare oo ka soo jeeda deegaanada Puntland iyo wasiirka dowladda madaxtooyada Puntland Cabdifataax Maxamed Cabdinuur labada mas'uul ayaana kulmeen wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha uu magacaabay Xamse Cabdi Barre wasaaraha madaxweynaha ayaa aad uga soo horjeeday magacaabida Xamse xilka wasaarenimo maadaama uu doonayay in isaga lagala tashado oo markaas la magacaabo qof reer Puntland ah taasina way dhiciyay wixii markaas ka dambeeyay Dani ayaa caqdad xoogan u qaaday Xamse waxaana la sheegay inuu mar diiday in wasaaraha inuu booqdo deegaanada markaas Puntland sidoo kale fursado dhowr ah oo ay suuragal ahayd in labada mas'uul ku kulmaan ayaa waxaa arrintaasi ka maagay ama ka maagmaagaba ama si cad ugu horreeyay madaxweynaha Dani wuxuuna dhawaan shirkii hogaamiyaasha maamulada ee federaalka ee Muqdisho ka soo degay Dani markaas kaga qayb galay arag macadda waxaa lagu dhameeyay khilaafka labada mas'uul iyo waxa bedelay mowqifka Dani hase yeeshee waxaa la fahansan yahay in kulankan uu yahay kii markaas lagu xaliyay madmadowgii iyo khilaafkii dhinacyada markaasi ka dhaxeeyay imanka waxaa leeyahay Xamse Cabdi Barre waa uu tagi karaa Garowe oo waa uu markaas ama waa markaas la dhameeyay khilaafkii madmadowgii markaas dhinacyada soo kala xagaleen qayb dhexe janalkina ayaa daawanaysan saaxiibayaal haddii aad ku subscribe nasar gambalka furnusi shirgareeya si saaxiibo badan barnaamijkeena u gaaro
isla wararka siciidani iyo madaxweyne xasan sheekh ayaan kugu jirnaaye madaxweynaha ayaa xubin cusub loogu daray hay-adda batroolka soomaaliya ee SBI si loogu qanciyo inuu mucaaradka ka degayaan heshiisyada shidaalka ee soomaaliya. xogga aan helnay ayaa sheegaysa in xubnahaas uu yahay cabdullaahi siciid deni oo ah wiilka deni kadib markii puntland iyo dowladda federaalka heshiis hoose ay ka gaareen khilaafka ka taagan arrimaha shidaalka. maamulka puntland ee siciid deni hogaaminayo 5 bishii Julaay 2022 ayay shaacisay inaysan qayb ka ahaanba aqoonsashada ama inaysan aqoonsanin hay-adda batroolka u qaabilsan dowladda federaalka ee petroleum ee Somali Petroleum Authority kana soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada shidaal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. si kastaba puntland ayaa 25 Oktoobar ka laabatay go'aankaas waxayna taageertay heshiiska wadaagga wax soo saarka shidaalka ee kala saxdeen dowladda federaalka iyo shirkadda Coastal Exploration. madaxweynaha puntland oo hadal ka jeeday furitaanka kalfadhiga kontinuuda baarlamaanka ayaa sheegay in puntland ay soo dhaweynayso ka faa'iideysiga kheyraadka Soomaaliya isla markaana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii loogu faa'iideysan lahaa kheyraadkaas. puntland waxa ay soo dhaweynaysaa ka faa'iideysiga kheyraadka Soomaaliya sidaa daraadeed waxay puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii loogu faa'iideysan lahaa kheyraadka dabiiciga ayuu yiri Deni. xogta aan helay ayaa sheegaysa in xasan sheekh uu Deni ku qanciyay inuu xubin ugu daro hay-adda batroolka Soomaaliya waxaana kadib la xaliyay khilaafkii arrimaha shidaalka ee dowladda federaalka ee Puntland. dowladda ayaa 22 Oktoobar ogolaatay heshiiska muruq badan dhaliyay ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo shirkadda Coastal Exploration kaasoo ay hore u jiiday dowladda madaxweyne Farmaajo. heshiiskan oo saxiixay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa waxaa diiday madaxweyne Farmaajo wasaarihiisii hore Roble balse shirkadda Coastal ayaa ku adkaystay inuu yahay mid sharci ah oo aan laga bixi karin. qoraal ka soo baxay fila Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda ay 5 qodob ay ka bedeshay heshiiskaas iyadoo markaas la kaashanaysa garyaqaan guud ee qaranka iyo sharci yaqaano caalami ah oo ku taqasusay arrimaha heshiisyada noocan ah kadibna dhameystirtay. wararka arrimaha gobolka waxaa ugu waaweyn madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in dunida 10 sano ee la soo dhaafay markaasi ay wajahayso halis aad u daran isla markaana ay ugu wacantahay dagaalada dalka Ukraine ay ku hayaan. dhinaca kale waxaa ka mid ah wararka arrimaha caalamka diblomaasiyadda dad ayaa toori lagu weeraray oo ku jira ciyaaryahan ka tirsan kooxda Arsenal. hal qof ayaa ku dhintay ugu yaraan 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen oo qaarkood dhaawacyadooda halis ay yihiin kadib weerar toori loo adeegsaday oo ka dhacay dukaan weyn oo ku dhow magaalada Milano ee dalka Talyaaniga sida ay booliiska sheegeen. warbaahinta gudaha ayaa sheegay in nin da'diisa lagu qiyaasay 30 jir kana mid ahaa dukaanleyda waaweyn ee aagga waxay ka dhaceen ku dhintay. dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah Pablo Mari oo ah ciyaaryahan kubadda cagta oo amaah ugu maqan kooxda kubadda cagta ee Arsenal. eedeysanaha falkan oo 46 jir lagu qiyaasay ayaa la xiray booliiska waxaana meesha ay ka saaray in weerarku ahaa mid argagixiso.